marka la galo sanad walba bilaha ugu dambeeya gaar ahaan November iyo December ayaa waxaa jira weerar dheeraad ah oo ay la kulmaan Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika kuwa ay qaadaan kooxaha burcadda ee caadaystay dhacaya dhibaateynta dadka ajaanibta ah ee ku nool dalkaasi. Kooxaha burcadda ayaa mar walba bedelay farsamooyinka wax u dhacaan ayagoo qaabab kala duwan wax u weerara, waxaana sababta ugu weyn ee xiliyadan weerarada u ziyaadan lagu sheegay in kooxaha burcadda ay isku diyaarinayaan inay helaan lacago ay ugu baxaan xiliyada ciidaha Christmaska iyo midda sanadka cusub. Sanadkan weerarada ugu badan waxaa la kulmaya oo ay ku ziyaadeen dhacaya dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaha burcadda dhalinyarada Soomaalida ah ee ku xamaasha gawaarida lagu wareejiyo alaabaha kala duwan ee loo yaqaan delivery-ga ee geeya deegaanada tuulooyinka kuwa oo maalmihii u dambeeyay weerarada si joogto ah ugu dhacayeen maadaama inta badan ay iyagu wataan lacago kaash ah iyo alaabo fudud oo kooxaha burcadda ay u fududahay inay qaataan iyo sidoo kale gawaarida ay dhacaan. Mowlid oo kamid ah dhalinyarada ku xamaasha gawaarida ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in kooxaha burcadda ay markii hore weerar ku qaadi jireen goobaha ganacsiga xiliyadan oo kale balse sanadkan ay ku soo weecdeen dhalinyarada ku xamaasha gawaarida. Hadda dhaco markii hore xiliyadii hore ee 7kii iyo 6kii iyo baabuurta waxaa la dhihi jiray baabuurtu waa safe dukaantana way ka roon tahay, laakiin xilligeeyadan dambe sanadadan dambe waxaa ugu daran baabuurta dukaantii in la dhacaba waa la iska joojiyey. baabuurtii maadaama waxaa loo jeedaa ninkan in uu baxayo oo aadayo stock inuu aadayo waa loo jeedaa, waa la ogsoon yahay inuu dukaankiisa ka soo bartiiraynayo. horey uu loo istaagayaa dhinacii gaariga u jeedaa loo istaagayaa amba horey gadaal baa laba looga istaagayaa markuu gaarigu soo bartiirayana wixii uu stock ku doonanayay baa sidii looga daadsanaya. haddana waxaa ka sii daran baabuurta delivery-ga especially aniga hadda delivery baan ahay, dadkii ugu horeeyay baan ka mid ahay ee delivery qaado. waxaan bilaabay 2009kii intii ka dambaysana aad baan nolol targetsanay waxyaabo aad u fool xun oo aad u dhib badan baa horta delivery-da lagu hayaa, wayna ka daran yihiin aan dhihi karaa xataa kuwa dukaanta. Gudoomiyaha ururka Safe Somali Community Mudane Yusuf Umar Ahmed oo xafiiskiisa kula hadlay maanta warbaahinta ayaa ugu baaqay dhalinyarada ka xamaasha deegaanada qatarta ah inay ka fiijignoodaan weerarada ay qaadayaan kooxaha burcadda ah inta lagu guda jiro bilaha ugu dambeeya sanad walba. Ilaahay baa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiin ah. insha Allah ta'ala waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iideysto walaalaha saxaafadda oo nagu caawiyay inay waqtigooda nagu saacidaan baaq ku wajahan sidaad ogtihiinba Soomaalidu waxay ku jirtaa dhib joogto ah. maalmihii u dambeeyay waxaa soo baxay qorshooyin cusub oo lagu weerarayo dadka Soomaalida ah oo ganacsiga ku leh South Africa gaar ahaan gobolkan. marka waxaan dhihi lahay maadaama sanadkii dhamaad uu yahay qolooyinkan tuugada ah waxay soo kordhiyeen qorshooyin cusub ay ku beegsanayaan dadka ganacsiga kula gobolka. saas darteed marka waxaan dhihi lahay maadaama ay qorshe ay bedeleen meeshii awal dukaamanka ay ka weerari jireen waxay maalmihii u dambeeyay u bedeleen dadka delivery-ga wareejiyo inay hanti gareeyaan. marka saas darteed waxaan dhihi lahay Soomaalida inay taxadir dheeraad ay muujiyaan. si kastaba haatee sanad walba marka la gaaro bilaha dhamaadka ee ugu dambeeya 3 bilood ayaa waxaa si kordha weerarada ay geysanayaan kooxaha burcadda Koonfur Afrikaanka ah kuwa oo bedela mar walba qorshooyinka wax u dhacaan. Abdullahi Maxamed Amin, Abdullahi Qorshe, Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Cape Town, Koonfur Afrika.